ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono wada xumada ka jirta deegaanada koonfurta gobolka Saaxil gaar ahaan tuulada Girni, Godayar, Godaweyn, ila Carmo iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada. halkani waa tuulada Girni oo hoos timaada gobolka Saaxil. dadka ku dhaqani tuuladani waa xoolo dhaqato beeraley. caqabada ka jirta deegaankani ma aha wada xumo oo kaliya, balse waxa ka dhiman baahiyaha nolosha asaasiga ah sida waxbarashada oo dugsi sare aanay lahayn, goobo caafimaad iyo sidoo kale saldhig bilis. deegaankan tuulada Girni ee degmada Sheekh ay xukunto deegaanka wadadu 30 sanadood cid waxba kama qabanin lamana samayn nooceedii weeye. dhibaatada wadadan naga haysata dadka ay saamaysay aniga kamid ah halkan aan laga qaaday aniga leelaalaadiyay dhibaato badan bay wadadaas nagu haysaa gaariga lagu qaadaa dib weyn buu noo geystaa inta aanu tuurtuurayo oo kaliya noohooyin weeyaan waxa meesha jooga. noohooyinka mar buu roobdaa roobabkaas way ka xidhaan dhiiri buu galaa maxay heetay halka inay naftuba kaga baxdo qofka ay ku sugan tahay ama isagoo serious ama dhiig baxay ama dib weyn ay haysato oo serious ligeeyo oo la gaaro dhakhtarka xagga xarun caafimaad laad iyo wadadan dhigta taagan imika dumar markay 7 bilood gaaraan in ay gaadhaan halka ka raacaan aad bay neceb yihiin intooda badan halka way ka lugeeyaan. dhibta ku haysa ruuxa ka gaarigaas halku marayo dhibta ku haysa awgeed aniga waxa igala soo kulmay xaaskayga inaan qaaday oo dhiig ka soconayo markan 4 saacadood oo dhow sii socday ee aan arkay inaanay malaadbeena fiba gaarsiinaynin goob caafimaad Sheekhoona ugu dhow inaan dalbaday ambalaas aan quli gaariga ma soconayo iga hor kaalay oo ambalaaska dhexdeeda hor yimu qaaday oo markaan qaadnay dabadna ay noqotay dhiig loo shubo. dhibta noocaas ayaa naga haysata cidii wax nagala qabanaysa iyo warbaahinta baan u sheegaynaa iminka xilligan dadku wuxuu ku jiraa duruuf adag waxa lagu jiraa xilli abaar ah biyihii way naga gooyeen beri dhaweyd booyada la soo dalbaday boodihii wada xumaan aawadeed meel noo soo maraan bay waayeen duraasi iyo dirqi iyo qaali nuulkii biyaha lagu keenayay daa qaali gareeyeen maadaama ay yiraahdeen meeshii dhib baa naga haysan ayaa noogu daray baalbay cunay abeesa la yiraahdo markuu cunay gaari waanu weynay noo haysanay noo hada wada ma jirin meelaylan barta way weyday absi weyn bay heshay absida weyn gaadlaana wadeed iyo wada xumaan haysay marka 22 cashaan oo qabay ya gaad sheekh la iga soo diray way qaaday dhakhtar buu geeyay waan ku badbaaday. waxaan ay magaalada Girni oo baabuurta wadaan oo hooyinka reer baan ku shaqaysanaa dadkan ugu adeegnaa waxaan qaadnaa ama dadka xanuunsanaya markaan qaadno dhibaato badan ma haysta wadada halkan ilaa Sheekh waa masaafo dheer runtii waara buur dheero dhibaato badan bay leedahay iyo dooxyo ragaa ka qaadno dhibta ugu badan ee soo gaaro shilimaadka nooli wax yar baan ka qaadnaa waxaan ka qaadno wadada dhibteeda baabuurta ayaa ama taayir baan dugu iibsanaa ama gaariga rabadho ama waxyaabo dhibta baabuurta ay keentay ayay dubay nooga galaan baabuurta tuuladan la yiraahdo Girni ayaa la iga qaaday aniga iyadoo aad ku xanuunaya ay go'aan markii gaariga la iga qaaday wadada dhagax badan leh iyo godka faraha badan leh leemariyay kolba waa la iga fogayay anigoo aad u dhibaataysan oo la liita wadada xumaanteeda ayaa kooma sii gala hadii wada la helana wax kasta waa la helayaa. hadda waxaanu ka dhaqaaqaynaa tuulada Girni annagoo u sii jeednaa tuulada Godayar
intii aanu safarka ku jirnay waxaanu sii marnay dooxyo taas oo aanu kala kulannay dhibaato dhanka socodka ah dhagaxaan dhadhaabya oo aanu dhaafitaankooda ku raagnay waa caqabadaha aanu la sii kulannay intii aanu ku sii jeednay goda yar halkan waa tuulada goda yar anigu waxaan ahay haydhmaankeedii waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waddadaa shiikh ilaa dawladdii faqash cidimay taaban degmada shiikhna may taaban gobolka saaxilna waxba kamuu qaban galbeedkaa shiikh waxa waddo u soo baxday ma jirto waddadaa waa waddada marka ugu horraysa la doonaya ee magaalada u ahayd tacmiirta gobolka saaxil ku xidhnayd annagoo gobolku ka tirsan horta waddadaas way go'antay marka ugu horraysa anigoo ku hadlaya afka hooyooyinka uurka leh caqabadda ay nagu haysato waddaxumada gaadiidka ka hor hooyooyinku waxay tagaan ka hor intaanay markay soo dhomeeyaan xilliga ay ku jiraan xilliga foosha ama 9 bilood ay galaan goob caafimaad taasoo ay sababayso dooxyada oo xidhma caqabadaha buuraha oo daakiraad ku keenta taasoo hooyadu ka baqanaysa in gaariga ku sii dhex dhasho ay caqabad kala kulanto ka hor bay tagaan goob caafimaad wadada markaan mari kari weyn waxaanu ka leexnaa meel ay hodhu bato 300 kilomitir baan soconnaa gaadiidkayna dhibaato ay nagu hayso halkan dhibaatadana haysata noolkaanu ka qaadnaa waxa ogaadeen uguma qaadno waana wada xumada haday geeda yihiin iyo haday wax kale yihiin waan ka waxsanaa meel kale aan u bayrnaa waxa weeye waxaanu leenahay dawladda waxaan ka codsanaynaa cashuur bay naga qaadaa shiikh baa naga qaada berbera naga qaada wax la waxa nooga qabataa ma jirto waxa laga yaabaa in waxa la mooday inaan kuma tirsanaynba aanu ka mid ahay dadka godoon baa ku dhaca godoonkaas oo ah wada xumada shiikh iyo u dhaxaysa go'o waxaanu doonaynaa in waxna looga qabto wadada wixii danaynaya ama dawlad ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama dadka qurbaad jooga ha noqoto waxaanu jecelahay wadada in waxna looga qabto inaan imika markaanu u baahano in burco la qabto waa wareeg marka Hargeysa la qabtana waa wareeg shiikh baa noogu dhowo dee shiikh wadadiisu way xumaatay dooxada boqolaa qaaday awood gacmeed waanu tahli kari weyne cagafna waanu tahli kari weyne waa taa idiin muuqato waa boqolaha cas waa laba qow daadun baa iska mara inta yar halkan ku beertaana way go'aysaa oo daad kuma iska raacaysa annaga waxa saameyn weyn nagu yeeshay oo na baabiisay wada xumo waxa la dhaho aakhirey noo riday wada xumadu qof buka lama carari karno gurmad meel qof dhintay kuma carari karayno dhawaan iyo saacado ma gaarayno shiikh 12 saacadood bay nagu qaataa shiikh iyo gowrinta inta u dhaxaysa socodkeedu waa mashkilad soo jireen oo na haysatay faqash baa ogeyd dawladdii hore burburtay Soomaaliland oo madaxweynayaal badan isaga dambeeyay baa og bulshada caalamka iyo dadka socdaalka ee wadooyinka maraa og dhibaatadaas waa mid naga tegi weeyay waxaasoo kale maanta uu soo rogmado deegaanku xaggaas ku badan yahay halka daad baa maraya halka ardaydu ku jirta iskuulka bay dhiganaysaa maxaa daba jira kala gadoon baa kii araabi lahaa iyo kii iskuulka ka tagay gurigoodii qaban lahaa iyo kii soo socday iyo xoolihii daanka joogay mid walba gadoon baa ku jira waxa uu ahaa safar qaatay 3 cisho oo isugu jira guure galab carrow iyo kalahaad waxaan u qalab qaadanay sidii aan xog idinku soo gudbin lahayn ku saabsan wadaxumada ka jirta qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka saaxil waxaanu bannaan buur iyo dooxyo ay adag tahay ku safridoodu